Bismillahirrahmanirrahiim. Unit-ka toddobaad cutubka toddobaad ee fasalka tobanaad ayaan ku dhigan doonaa coordinate geometric. Waxaan dhigan doonaa markaa insha Allah distance between two point, fogaanta u dhaxaysa laba barood iyo line segment xariijin, equation of line isleeg xariiqeed iyo parallel and perpendicular line xariiq barbara iyo kuwa isku qotoma iyo equation of circle isleeg goobeed ayaan dhigan doonaa. Casharkan waa hordhac weeye ardayda freshman-ka ee dhigata jaamacadda. Casharkan waa casharkiinii unit 4 ayuu isna ku saabsan yahay. Waa isku mid, kan iyo kaas waa isku mid, in yar baa yar weynaatay. Haddaad kan fahanto kaana waad fahantay. Markaa arday baa iga soo codsatay toddobada unit ee uu ka kooban yahay 5 waan dhammaynay. Unit 6 iyo unit 7 baa noo hadhay. Markaa 6ka iyo 7ka ayaa laga soo codsaday. Sidaa ayaan u bilaabayaa 7ka ee la socda. 6kana insha Allah waan bilaabi doonaa haddii la yiraahdo. Si u gaadho ardayda Soomaaliyeed dhammaan waa inaad like saartaa, share garaysaa, subscribe aad noo saartaa. Markaa hordhac weeye casharkani. Marka la isiiyo intan u fiirso, marka hore intan waa inaad fahantaa. Horta graafka inaad fahanto. Graafka haddaad fahanto wuxuu kaa caawinayaa circle-kii waad fahmaysaa. Geometry-gii dhammaanna waad fahmaysaa. Markaa intan waa hordhac si fiican igu fiirso. Intaas waa x baa iska leh, x axis. Didibka xaawij intanna waa y axis. Didibka ya baa la dhahaa. Wasla fahnima. Kabacdi marka intaa ii fahanto muhiim weeye kan inaad fahanto. Haddaan eber ka dhig sabab noqonaya. Marka waxaan dhahayaa halkaas origin baa la dhahaa. Origin bar kulan weeye bartay ku kulmaan. Halkaas waa x positive, halkana waa x negative. Wasla fahnay. Halkana waa y positive, hoostana waa y negative. Intaa markaad ila fahanto waxaan dhahayaa coordinate order pair waa lamaanayaasha marka x iyo y. X coordinate iyo y coordinate waa isku mid un. X axis iyo y axis bay la mid tahay. Haddaan imika intaa dhaho maxaan haystaa x 3 baan haystaa, y-na maxaan haystaa 2 baan haystaa. Haddaan kala hormariyose aan kala hormariyo 2 xag horaan keeno, 3na halka dambaan keeno. Inta inaad fahanto muhiim weeye. 2 iyo 3 aan dhaho markana x 2 baan haystaa waa ka dhibicda aan sameeyay. Xagana 3na y baan haystaa. Markasta intan waa inaad fahantaa. Xitaa sin, cosine, tan markaas sheegano wuu kaa caawinayaa. Coordinate-kana wuu kaa caawinayaa oo geometry markuu yahay. Kabacdi markaan sidaa dhaho 4 waaxood buu leeyahay. 4tan waaxoodna iyo xafid. Macallin markaan aan dhigana circle-ka kuwa dharanti waa waaxda koobaad, kuwa dharanti waaxda labaad, kuwa dharanti waaxda saddexaad, kuwa dharanti waaxda afraad baan dhahayaa. Sin iyo cosine xitaa markaad sawirayso waaxaan waa iskaga mid. Circle-kii haddaan sameeyna waa iskaga mid. Eberkii haddaan sameeyna waa iskaga mid. Markuu waaxda koobaad, waaxda labaad iyo waaxda afraad yahay. Waaxda koobaad markuu yahay labaduba waa maxayna x iyo y waa positive. X iyo y. Sin waan ognahay y inay noo tahay. Cosna inay tahay x baan ognahay. Markaa labaduba waa positive. Markuu waaxda labaad yahayna x taa negative. Y-duna waa positive. Markuu waaxda saddexaad yahay labaduba waa negative. Waa waaxda saddexaad. Labaduba negative ayuu noqonayaa. Waaxda afraad x taa positive y-duna waa negative. Waa waaxda afraad. Ha iloobin tan. Wax badan buu kaa caawinayaa. Sin, cosine markaan sawirano sidan baa loo qoraa. Casharkan bilaabayna ku saabsan yahay. Aad buu muhiim yahay. Markaa ila soco casharkan. Waxaan kaloo ku dhigan doonaa dhahayaa point slope form, waa intercept form iyo standard form baan dhahayaa. Intan waan ku dhigan doonaa casharkeena tusaale ahaan. Halkan haddaan saa u sawiro halkaas waa x1 iyo y1. Halkaana waa x2 iyo y2 baan
dhahayaa markaan sidaa dhaho graph halkaas yimid haddaan dhaho slope m y2 negative y1 over x2 negative x1 baan dhahayaa tusaalaha kubad xaggaas waa x1 iyo y1 kana waa x2 iyo y2 waan dhahayaa markaas maxaan dhahayaa maxaan haystaa waa 5 negative 2 over 7 negative 6 maxaan helay marka 3 over 1 baan helay 3 over 1 equal 3 baan dhahayaa marka m baan intaas soo helay m equal baan dhahayaa m is equal to 3 haddana markaan u baahanahay inaan aan soo saaro slopekii hadda intaa waan soo helay markaan u baahanahay si aan uga dhigo waxaan isticmaalayaa y negative y1 baan dhahayaa y negative y1 m times x negative x1 baan dhahayaa m waan soo helay kuwanna waan haystaa badiga arkay marka waxaan dhahayaa y negative 2 baan dhahayaa y negative 2 is equal 3 x negative 6 baan dhahayaa ka bacdi waa maxayna waa point slope form baan dhahayaa inta markaa y is equal to baan dhahayaa inta markaan dhaho y ka bacdi 3 igu dhifo x haddana igu dhifo waxaan dhahayaa waa y negative 2 is equal 3x negative 8 iyo 10 baan dhahayaa markaa dhan kaste laba iga jar plus 2 baan dhahayaa saan y u helo markaa y maxaan helay 3 negative 6 iyo 10 markaa waxaan dhahayaa maxayna waa waxa weeye slope intercept form baan dhahayaa casharkan oo kale dhammaan ayaan ku dhigan doonaa iyo mid faataan u malaynaya hadday tahay markii hore soo booqatay channelkan subscribe saar arday kastoo Soomaaliya oo taqaano meeshinta u dir si uga faa'iideysta halkan mas'uuliyadda indhigayna saaran tahay waa anigoo reelina. Assalaamu calaykum waraxmatullahi